waxaad run ahaantii ku niyad samaataan inuu idin yimi nin aqoon-yahana mar dhowd buu noo warramay 12 sano ka hor buu arrimaha laborka iyo bulshada la taliye uga ahaa wasaaradda shaqada ee Somaliland waa aqoon-yahan jaamacadaha dalka iyo kuwa dibadda aqoon kala yimi waa nin gobannimo iyo hawlkarnimo iyo dadnimaba ku sheegan marka haddii bariyaha qaar anu markaan halkan joogi jiray aad nin kulkulul iyo arki jirteen waxaan u malaynayaa cidna ka soo dacwan mayso biix isaga hawlkara aad u daacada marka waa nasiib badantii isna waa nasiib badan yahay oo wuxuu yimi wasaarad wax badan laga qaban karo arrimo bulsho arrimo dhaqaale siduu u xusay dhan walba saameynaysa haddaan markaa yara dul istaago dowladnimada wasaarad walba meel bay kaga jirtaa haddaad eegtaan doorashooyinka adduunka la gelayo ishuuga ugu weyn ee dal walba doorasho lagu galaa waxa weeye dowladdaasi maxay ka qabatay xaaladda shaqo ama shaqo abuur ee markaa taagan dowladnimo gebigeeduba waa tacab meel la geliyo wax la soo saaro waxaasoo la cashuuro waxaasoo wax lagu kala maareeyo oo meeleeyo ama daaqa iyo xanaanada xoolahan hadda ka imiye wixii la gelin lahaa aqoontii iyo xirfaddii farsamo yaqaanada miyiga tegaya ee soo tallaalaya adhiga ee rangeska samaynaya waxaa ku hoos jira xirfadley loo baahan yahay inay meesha ka howlgasho waa wasaaradda la rabo inay soo saarto waxaan la yiraahdo National Occupation Classification shaqooyinku imse u kala baxan imsaas loo baahan yahay waa wasaaradda la rabo inay shaqadeeda u jaangoyso wasaaradda waxbarashada soo arrin yaab leeyahay lama eka wasaaradda waxbarashadu marka ay manhajka iyo tacliinta iyo aqoonta dalka go'aaminayso waxay ka dab qaadanaysaa ka lux jeedanaysaa wasaaradda shaqada waxay u sheegaysaa suuqa shaqo waxa looga baahan yahay marka suuqa shaqo waxa looga baahan yahay la isla meel dhigo baa tababaradii iyo aqoontii la waafajinaya baahidaas suuqa ka jirta demand supply curve-ka shaqada iyo sektarada wasaaraddan waxaa la rabaa inay tiraahdo soo ma maqashaan qorshaha qaranka wasaaradda saameynta ugu badan ku yeelanaysa waa wasaaraddan shaqaale rayid ah oo intee lag bay dowladda Soomaaliya u baahan tahay 5 sano soo socota waa jooga raggii hawlahan ka shaqayn jiray ma aha qofka la shaqaalaysan intuu xildhibaan soo kaxeeyo inuu go'aamiyo hebel ii shaqaalaysay waa in la soo dejiyo la yiraahdo 3 sano soo socota wasaaradda biyaha waxaa looga baahan yahay 4,000 oo shaqaale maadaama biyo yaridu ay halis tahay waxaa la rabaa in la kobciyo oo la kordhiyo arrimaha technician baa imanaya dad booyada wada imanaya xirfadlayaal baa imanaya surveyors baa imanaya horta dowladnimadii halka ay fadhida waa halkan fahamkaana wasiirada soo galaya iyo khibradoodii hore Ismaan Labax muddo idin la joogay dabaqani isagoon jirin oo qabiica ragga wax ka soo dhisay weey nin walbo yimaada waxbuu ku soo kordhinaya ka ku sii xigan waxbuu sii kordhinaya waxaan anagu markaa ra'iisul wasaare ku-xigeenku waxay meelaha uu hogaamiyay guddiga arrimaha bulshada ka mid ah ahmiyad weyn baan siinaynaa wasaaraddan waxa uu wasiirku ka dhawaajiyay shaqo abuurka amni ma sugmaya haddaan dhalinyaradii xaalado kale iyo fursado kale loo samayn meelo ay waa inay wax ku aloosnaadaan su-aasha weynna waa laydinka fadhiyaa barnaamijyo waaweyn oo bulshada engagementkeeda iyo falgalkeeda ilaa arrimihii bulshada idinkeeda ag taalla iyo shaqo abuurkiiba waa laydinka fadhiyaa waxaan ku soo gunaanadaya adduun weynahoo dhan markii la eegay dalalka horumaray dalalka nolosha ummadooda wax ka bedelay 3 shay niman baa jira hadda la yiraahdo Aasiya bari Japan iyo China iyo Malaysia iyo Indonesia iyo 60 sano ka hor waxba inama dhaamin mala inagaaba ka dhaanay maantana dhaqaaladu aad buu kobcay 3 shay baa markaa ku kobcay mid waxa weeye siyaasadda
oo laga dahaaro shaqada dowladnimada oo aan la siyaasadayn mid waxa weeye private sector-ka oo la empower gareeyo talabaadna waa in la helo shaqaale dowladeed oo aqoon leh xirfad leh kana kaadsooma arrimaha siyaasadda la xiriira iyo arrimaha kale oo ku kooban merit based bureaucracy cabdi samatar iyo artikalada waaweyn ee Botswana meelaha ka qoran haddaad eegto bureaucracyad ama shaqaale rayid ah oo siyaasadana ka faraha aan la gelin iyagana aan faraha la gelin oo jaangooyo qorshayaasha dalka ayaa ummadaha isdhaafiyay baa laga tiina wasaaradani qayb weyn bay ku leedahay auditkii baa hore loo sameeyay sharcigii shaqaalaha rayidka baa baarlamaanka hor yaalla baarlamaankana waxaan ku boorinayaa horta bal sharciga inay soo dhaafiso waxa ka ratibmaya pensionkii oo la hawlgeliyo qofku goormuu shaqada soo gelaya da'deebu ku soo gelaya dhowr iyo 20 jir goormuu ka baxaya 30 sano 20 sano markuu dawladda u shaqeeyo muxuu dhaxal ka helaya afkaarahan halkan laga rabaa shaqaalaha Soomaaliyeed ee suuqa ka shaqeeyana badqabkooda iyo fursadahooda iyo ilaalintooda halkan laga rabaa waa halkan idinku qoran annagu waa idinku taageeraynaa waan ku niyad samahay marka ragga iyo hablaha halkan fadhiya inay arrin weyn wax ka qaban karaan baxnaanona si weyn bay u shaqeynaysaa sagalna waa idinku soo biirtay baa liigu yiri hawshiinu ma yara wasaaraddu marka bariyaha xogay Soomaalidu waxay iska jeceshahay maaliyadda in la aado iyo gaashaandhigga iyo wasaaradda kan weyn oo jirta ma jirto siyaasiyiinta iyo madaxda sarsare dalkuna waa inay ahmiyadda siiyaan annana waanu ku boorinaynaa door baanu ka qaadanaynaa aad baad u mahadsantihiin